Shiino culay xaalka ayaa ku sii xumaaday cadeeman cusubna waa la soo gudbiyay Manaal Beeldaaj warka lagu xamanaya maxaa ka jira dhacdooyin cusub oo dheeraad ah ayaan idiin haynaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo like dhahaya si muuqaalku u gaaro saaxiibo badan dhinaceena YouTube-na haddii aad nagala socotaan waxaan idinku xushmeynaynaa in janaalka subscribe aad dhaato oo gambaleelka furto si ay kugu soo dhacaan si lamida muuqaaladan halkan ku baahino waa hagaag sida la socotaan dhammaantiin baraha bulshada waxaa qabsaday cod laga soo duubay Shiino Culay kaas oo ka sheekeynayo Google dhaaf uu la sameeyay gabar oo qaba wiil ay saaxiibo horay ay u haayeen xaalka ayaa cirki isku shareeray waxaana qasay labanay ka taagan tahay baraha bulshada meel kasta oo social media ka tirsan waxa wareegaya codka Shiino Culay oo la garanayo walow mar dambe uu soo hadlo oo sheegay in arrintaasi ay tahay mid waxba kama jiraan hase yeeshee gabadha Google dhaafka la sameeyay ayaa la geliyay shakiyo waaweyn iyo sidoo kale eedeemo kala duwan inkastoo ay tahay wax xaraan ah haddana Shiino Culay waxa uu cadeystay inuu Google dhaaf la sameeyay gabar la oo markaasi u dhaxda wiil ay saaxiibo yihiin CK oo arrinta si dadban ugu soo hadlo wuxuu cadeeyay arrimahaas oo dhan in ay yihiin kuwa waxba kama jiraan hase yeeshee waxa uu tilmaamay in markasta oo maqlo hadalla asaga lagu durayo gabar ay kala tageen sanad iyo 8 bilood ka hor waa hadalkiisa sidoo u dhigay Master CK oo soo hadla asna Manaal Beeldaaj oo eed ugu weyn ee heysata iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Afti Xabiibi oo isla Manaal ah ayaa arrinta soo faragelisay waxa ayna si toos ah u cadeysay in waxa la sheegay iideesa shaqo ku lahayn hase yeeshee tuhno iyo sidoo kale shakiyo waaweyn ayaa Afti Xabiibi lagu gadaamay warar aan la hubin ayaa waxa ay sheegayaan in eedeenta ugu weyn Manaal ay noqon karto inkastoo gabar Ingiriiska ku noolna xaalka ay ku jirto Shiino Culay si cad uma sheegin gabadha oo Google dhaafka uu la sameeyay in ay tahay Afti Xabiibi iyo sidoo kale mid kale hase yeeshee dadka falanqeeya baraha bulshada ayaa eedeenta weyn dusha kaga tuuraya intooda ugu badan Afti Xabiibi oo loogu magac daray Manaal Beeldaaj hase yeeshee annaga ma xaqiiji karno cid ay tahay iyo sidoo kale cid uu Google dhaaf uu la sameeyay walow codka Shiino laga helay waxa uu tilmaamay in Google dhaaf cad uu sameeyay waa sida ka muuqatay codkii laga soo duubay Shiino Culay kaas oo qabsaday baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay maxaa arrintan kaga aadan Manaal Beeldaaj maadaama culays weyn uu ka saaran yahay baraha bulshada waxaan isdul istaagi doonaa xaalka CK Manaal iyo sidoo kale Shiine codka Shiine waxa ku jirtay ninkii geemayo ciyaaraya ee waa isticmaali waayay Shiine asagoo xaaslayo waxa uu tilmaamay in intuu ka baxay Jarmalka ugu tagay halkii ay joogtay ayuu ku soo maamushay howsha sidoo hadalka asaga u sheegay codkiisana ka muuqanaysa saaxiibayaal hase yeeshee gabi ahaan waxa been abuur cad ah dadkana ay u jeedaan in Manaal la iska eedsado inkastoo wax walba annaga aan xaqiiji karna hase yeeshee baaritaanka codka Shiine aan ku sameynay waxaan ku ogaanay in arrintaas ay tahay wax malaa oo kaliya waad ku maasantii dhammaantiin daawashada muuqaalkan ee noo share gareeya saaxiibayaal